taliya ku-xigeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed Sariye Guuto Cusmaan Cabdullaahi Maxamed iyo sidoo kale wasiirada diblomaasiyiinta kala socday beesha caalamka ayaa dalka Djibouti waxa ay kaga qayb galeen xaflad heerkeedu sareyso oo tababar lagu soo xirayay cutubyo ka mid noqon doona ciidanka daraawiishta booliska Soomaaliyeed. Cutubyada loo soo xiray tababarka ayaa waxay noqonayaan dufcadii 22aad ciidanka daraawiishta booliska Soomaaliyeed. taliya ku-xigeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa dawladda Djibouti kaga mahad celiyay tababarkan u fidiyeen ciidanka booliska Soomaaliyeed. waxa uu sidoo kale u mahad celiyay dawladda Talyaaniga oo gacan weyn ka geysatay tababarkaani. waxa uu sidoo kale sheegay in ciidankan booliska ee maanta tababarka lagu soo xiray dalka Djibouti ay ka qayb qaadan doonaan xoreynta dalka iyaguna tagi doona furimaha dagaalka halkaas oo ay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kala qayb qaadan doonaan dagaalka dalka looga xoreynayo maleeshiyada Al-Shabaab. si kastaba dalka Djibouti ayaa kamid ah dalalka Soomaaliya ka taageera dhinaca militariga iyo ciidanka iyadoo Djibouti iminka ay kamid tahay howlgalka cusub ee ciidanka midowga Afrika ee USOM.